بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثم نصلي ونسلم على أفضل الرسل وأكرم الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala inoo saamaxay inaan iskugu imanno mar labaad ama aan ku kulanno kulankeenii caadiga ahaa insha allahu tacaala. ikhwaanii walaalayaal, waxaan maanta ku ballansannahay sidaa ay noogu taallay maxaanku idhaahdaa ogeysiiskii amba iclaamkii aan soo dhignay dhowr 40 minir ka hor, mowduuc ku saabsan ka hortagga cudurkan aadka dunida faraha adag ugu haya ee loo yaqaano corona virus amba loo yaqaano COVID-19. waxa weeyaan walaalayaal, adduunyadan aanu ku noolahay isbeddel laxaadle ayaa ka dhacay. waxaa abuurmay 1991 wixii loo bixiyey nidaamka caalamiga ee cusub, النظام العالمي الجديد, kadib markii uu dhacay dowladdii weyneyd ee loo yaqaanay midowga Sovietic. waxaa markaas soo baxay hal dowlad oo dunidoo dhan gacanta ku dhigtay. waxaa bilaabmay mashruucii loo bixiyey mondialisation amba globalization amba cawlama loo bixiye caraynta caalamkan in laga dhigo hal heejad ah. nidaamkaa cusub ayaa bilaabmay. waxaa keenayna 4 arrimood oo waaweyn oo ay ugu horeyso dhicistii uu dhacay ruushku, horumarka laga gaadhay dhinaca warisgaadhsiinta, dhaqaalaha dunida oo la mideeyey oo maskax quraata loo sameeyey, iyo hal awoodood oo adduunka qabsatay. sidaa daraaddeed dowladahan markii ay bilaabmatay nidaamkan loo yaqaano mondialisationka amba globalizationka amba cawlamada sida loo kala bixiyey, waxay u bixiyeen culimo waaweyn oo dunida tan daba gurtay fikradda. waxay u bixiyeen americanization amba americanisation, amrikatul caalam, in dunida la maraykaneeyo, dadku inay isku ekaadaan, hamburger ay wada cunaan, jimis ay wada xidhaan, coca-cola ay wada cabbaan, kii kooka hawaayana bebsiga u cabo, inaa maaragtay markaa ay noqoto dunidu maaragtay wax maaragtay meel quraatee laga maamulo. arrintaas waxaa bilaabmay baa oranay 1992 kadib kowdii ninkii la oran jiray Bushkii aabbaha ahaa ayaa bilaabay. waxaa markaas soo baxay 2 buug oo aad u culusaa oo ay kala qoreen nin la yidhaahdo
Fukuyama iyo nin kalete oo isagana maaragtay qoray boogii loo bixiyey sidaam alxadaaraat amba loo bixiyey siraacu alxadaaraat isku dhicii civilizationada. marka ka kaleetana wuxuu qoray taariikhda gabagabadeedii. labadan buug waxaa lagu macneeyey laba arrimood. waxaa lagu macneeyey adduunkan waxaa soo maray 800 oo ilbaxnimo sida ay qortay wakaaladda UNESCO ee raacsan jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa. 800 ee xadaaradood dhammaantood waxay ku dhammaadeen inqiraad ambase waxay ku dhammaadeen burbur. xadaaro walbaba ilbaxnimo walba waxay ku dhex baaba'day ilbaxnimadii ka dambaysay ee ka culusayd ee ka weyneed. ninkan maaragtay qoray isku dhicii xadaarooyinka amba sidaamul xadaaraadka qoray wuxuu isagu ku macneeyey 7 xadaaradood baa baabi'i kari wayday. 7 xadaaradood waa xadaaradaha waaweyn ee dunida maanta ka taliya, waxaana ugu culus buuri xadaaradda reer galbeedka, wuxuuna ku daray xadaaradaha burburi kari waayey ee laga adkaan kari waayey xadaaradda islaamka. okay, markaas ninka kaleeta laakiin oo asalkiisu Japan ka soo jeedo Fukuyama oo Maraykan ah, labaduba jaamacadda Harvard bay ka dhigaan political science-ka amba politiga culum siyaasa science-ka ayay ka dhigaan culumtiisa siyaasadda culumteeda ka dhigaan. waxa ay labaduba ninka dambe uu yiri taariikhdii way dhamaatay, taariikhdii bini aadamku way gabagabowday, waxay ku gabagabowday xadaaradda reer galbeedka. ninka doonaya inuu noqdo qof noolaan kara waa inuu qaato qiyamka ilbaxnimada reer galbeedka, akhlaaqda iyo dhaqanka reer galbeedka. markaasaa daraadeed waxaa la yidhaahdaa mujtamacan maanta dunida waxaa ka taliya waa xadaaradda reer galbeedka, laakiin waa xadaarad 3 arrimood iskale. arrinta koowaad ee xadaaradani leedahay waxa weeye waa xadaarad rasionaal, waa xadaarad caqlaani ah. markay wax eegayso waxay ku egtaa caqli, waxaan ma saxba mise waa qalad, waxay ku egtaa caqliga. laba waxay dhahdaan waa xadaarad maadiya, waa xadaarad materiala, waa xadaarad haysata awood oo dhan ilaahay uu siiyey tabaaraka wa tacaala. maxamed qutub wuxuu dhahdaa waxaa la siiyey awooddii cilmiga, waxaa la siiyey awooddii dhaqaalaha, waxaa la siiyey awooddii siyaasadda, waxaa la siiyey awooddii fikirka, waxaa la siiyey awooddii kaleeto oo iclaamka warbaahinta. waxay ku darsadeen 2 awoodood oo kale. awoodda waxay ku darsadeen waxa loo yaqaano inay hubka iyaku ay sameeyaan, iyaku ay gadaan, iyaku ayna dibadda ay geeyaan. marka taasina way haystaan. waxay kala haystaan waxa loo yaqaano alqaraar addawli, inay qofka ay doonana shaydaan ka dhigaan, qofka ay doonana ay ka dhigaan khayr qabe. marka dunida waxay u qaybiyaan akhyaar iyo ashraar, waxayna taa ku haystaan nidaamka la dhahdo vetoda oo ay ku haystaan 5 wadan oo 3 wadani ay yihiin reer galbeed, waa Maraykan iyo Ingiriis iyo Faransiis. wadanka kalena waa Ruush, isaguna waa diinta Kristanka. wadanka soo raaca waa China oo Buddhismia. markaas amba Confucius lagu daray communism iyo shuuciyad lagu daray ah. waxa weeye markaa dunidan aan ku noolahay saas bay u socotaa. waxa weeyaan warbaahinta meel qoraatay ka soo baxdaa, siyaasaddu meel qoraatay ka soo baxdaa, awoodda dad qoraataa haysta. sidaa daraaddeed noloshana iyo kaa macneeya. inta kaleetana waxay u yihiin intaa wax macneynaysa arday bay u yihiin. kuwa aan ardaynimada diidayna waxay u kala baxaan 2 qolo. qolada ardaynimada diiday waa qolo iyadu wixii la sheegaba diida oo tiraahdo waxa waxba kama jiraan, wax kala maqan oo in la helo loo baahan yahay. qolo kaleeta oo ardaynimada diidayna waa qolada islaamka fahantay, waxay leeyihiin maya anaku ardaynimo ma ogolin, waxaan ogol lahay wax la yidhaahdo nidiya, inaan wada sheekaysano, lianna waxaan haysanaa aragtida aad haysiin aragti ka duwan, walow aad awooddii haysataan laakiin awooddii fikirka ma haysataan. walidaalika waxaa dhahdaa waxaa jira fikratu lquwa iyo quwatu lfikra. waxaa jirta fikratu lquwa, dad aaminsan xoog, fikradoodba waa xoog, man lam yakun macii fa huwa diddii, iyo dad aaminsan quwatu lfikr, inay fikraddu xoog badan tahay. marka annagu waxaan ku jirnaa dadka aaminsan aqoonta iyo caqliga iyo cilmiga iyo ruuxdu inay ka awood badan tahay xataa marka qaarkood awoodaha kale ee la sheeganayo. sidaa daraaddeed walaalayaal, cudurkan yar ee corona la dhahdo amba maaragtay la dhahdo
covid 19 wuxuu ka bilaabmay dalka Chinaha wuxuu u baxay wadano kaleeto kadib markaas waxaa soo baxday saddex macno in lagu macneeyo saddexda macno maxay yihiin macnaha koowaad waa macnaha ruuxaaniyiintu ay qaateen wadaadada kaniisaduna way sheegeen wadaadada yuhuuduna way sheegeen wadaadada muslimiintuna way sheegeen wadaadada buudiyiintuna way sheegeen wadaadada siikhuna way sheegeen waxay dhahdeen ilaahay baa bini aadamka u cadhooday marka ilaahay cadhadiisii bay ka soo baxday arrintani tafsiirkaas waa tafsiirka ruuxaaniyiinta tafsiir kale ayaa jira waa tafsiirka ay ku fasireen dadka ta'aamuriga dhahdo dad kale war waxaan waa la sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Chinaha waxaa ka soo baxay qaraar amba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu sheegay inay ciidamada Mareykanku ay sameeyeen oo ay ku soo tuureen maaratay Wuhan dalka Chinaha si ay arintaasi dib ugu dhigto dhaqaalaha dalka Chinaha arintaasina wadaadka u taliya diinta maaratay islaamka shiicada dalka Iran murshidka weyn isaguna sidaas oo kale ayuu sheegay wuxuu yiri dagaalkii biolojiga ayaa bilaabmay arintaas waa arinta labaad tafsiirka saddexaad waxa weeyaan waa tafsiir isaguna xataa nin kaleeto oo maaratay ka hadlaya habeen dhawto Al Jazeera oo dalka Turkiga fadhiya oo cilmi baadho weyna arintaas uu sheegay isagoo oo daba guraya oo sheegay inuu xataa ninka maaratay sameeyay Microsoft-ga xukuma inuu hore u sheegay 2017 inay dhici doonto dagaalo bioloji ah inay xataa wasiirka arrimaha dibadda maaratay waqtigii 1990 dalka Mareykanka inuu sheegay isagoo wasiirka shandhiga u jeeda inuu sheegay inuu soo socdo dagaalo bioloji ah oo dhinaca maaratay la isku diri doono marka waxay leeyihiin dad fara badani waa dagaalkii oo noocan ma la jarribay oo la bilaabay markaasi qola saas u macnaysa tafsiir ruuxaaniya tafsiirka labaad waxaan waa tafsiir ta'aamuriya oo wax kastiba waa laga dambeeyaa tafsiirka saddexaad waa tafsiir cilmi ah waxay leeyihiin waxani waa cudur abuurmay ka abuurmay qalad bini aadamku uu sameeyey qaladkaas bini aadamku ay sameeyeenna waxay ku sameeyeen si qaldan maxaa yeelay marka uu hadlayaan culimada u shaqeysa maaratay ururka caalamka caafimaadka waxay sheegayaan dalka Shiinaha inay wada nool yihiin arigii iyo lo'dii khanaasiirtii aydii xayawaankii maaratay baranbaradii jiirarkii waxaasoo dhan ta meel lagu ururiyo inay waxaas oo dhan meel lagu hayo oo fiirisyadoodii ay isku tatabiyaan markaasay iskugu tatabinayeen bay bini aadankana u soo tabaan waxay culimmadu ay sheegayaan markay cilmi baadhis ay sameeyeen jidhkeenna hormoonaadka uu ka kooban yahay 90% waa fiirusyo soo ururay kun malaayiin sano jidhkeenna la soo ururay ilaa uu jidhkeennu samaysmay fiiris walba suu iska difaaci lahaa marka waxay leeyihiin fiirisyada inta badan xayawaanku bini aadamka uma soo gudbayn laakiinse waxaa la ogaaday inay maanta ay jiraan fiirisyo kasoo gudbay xayawaankii oo u soo gudbay bini aadamkii kadib markuu bini aadamku khalado fara badan uu ku dhacay markaas intaas waa saas waxaa ku macaninaya culumadii cilmiga baadhaysay markaas saddexdaa tafsiir baa ina hor yaalla annagu ma nihin dadka tafsiir quraata uun qaata laakiin waxaa jira filosof weyn oo muslima oo magaciisa la dhahdo Abu Yu'rab al-Marzuqi wuxuu oo reer Tunis ah wuxuu qoray maqaal oo maalin dhaweeta ka qoray corona oo dhex yaala tafsiirka shacbawiga ah iyo tafsiirka cilmiga ah sida dadka shacbawiyiinta ee dadka caadiga la hadla ee kulayliye ee ka cadhaysiye ee qulubtooda la hadla say u fasirayaan iyo kuwa maaratay cilmiga wax ku fasira say u fasirayaan mufakirka weyn filosofka weyn wuxuu soo saaray inay labaduba ka dheeriyeen xaqiiqada maxaa yeelay waxyaalada xaq saxda ah in la gaaro waxaa ka mid ah buuli in aan oran karno tafsiir saddexaad inaan soo saari karno oo ah tafsiir xadaari lilmarad maradkan dhinaca civilizationka haddaa ka eegno qalado badan baa inoo soo bixi doona waxaa ka mid ah buuli dhinaca matalan la dagaalanka cudurrada jidhka bini aadamka sidii loo taglaalayay sidii cudur looga ilaalinayay waxaa ku dhacay dacfun fil manaaca waxaa ku dhacay inuu manaacadii difaacii jidhku inay daciifto inuu cudur wal oo yar oo yimaadaba uu u noqdo raq oo markaa uu ku dhici karo idan qaladkaas maxaa galay buu leeyahay markii bini aadamka laga dhigay raq
la taglaalo ilaa uu noqday qof aan jirkiisu usaa noqonayo ambase laga ilaaliyo cudurba inuu ku dhaco oo uu noqday jirkiisu jir aanan abuurmi karayn manaacadii aan samaysan karayn dhinaca kale wuxuu yidhi waa wax ay keenaan ilbaxnimadu waxaa ka mid a buu yidhi in qaladada weyn ee la galaya waxaa ka mid a inaan cuntooyinka aan cunayno habka aan cunayno habka aan u diyaarsanayno habka aan ula dhaqmayno mufradaadka nolosha habka nolosha u socoto inay halis badan ay maaragtay sal leedahay sidaa daraaddeed waxaa dhici karta buuri in la dhahdo tafsiir xadaariya in loo helo ah qaladada insaanku uu samaynayo inay keensan karto ilaahay kitaabkiisana arrintaasaa ku cad qur-aanku wuxuu leeyahay bini aadamku markay qalad galaan anna haadi halkay ka dhacday sidii qaswatu uxud ilaahay wuxuu leeyahay qul huwa min cindi anfusikum ininkaa keenay gacantiinaa keentay fabimaa kasabad aydiikum markaasi waxa weeyaan problemka bini aadamkaa ka mas-uula ilaahayna tabaaraka wa tacaala arrintaasi kama hor imanayso taqdiirkiisa ilaahiga ah ee ilaahay inuu qadaro tabaaraka wa tacaala bismi illah ikhwaanii fillah maradkan jiradan cudurkan corona dalka maraykanka oo ah waddanka dunida ugu xoog badan waxa uu ku tilmaamay inuu yahay dagaal qaranka maraykanku inuu dagaal ku jiro oo taariikhda dagaaladuu soo maray kii ugu adkaa ah waxyaab la weye waxay la dagaalamayaan wax aan la arkayn oo dhahda magaciisa corona markaasi waxayna kula dagaalamayaan awooddii dalka maraykanka oo dhan marka wuxuu leeyahay khudbaddii uu jeediyey daraa toole madaxweyne trump 7 jeer buu hadal qaaday kelmadda dagaal madaxweynaha faransiiska oo waddanka afraadii dunida ugu xoog weynaa wuxuu sheegay inuu la dagaalamayo cudurkaas oo ah dalka faransiisku inuu ku jiro dagaal mustashaaradda xukunta dalka jarmalka michael waxay tiri waxaa suurtagala 70% shacbiga jarmalka inuu ku dhaco waa wadannada adduunka ugu caafimaad badan waa wadannada adduunka ugu awood badan bay ku jirtaa laakiin waxay tiri 70% inuu ku dhaco ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa in uu cudurkani naga qaado dad aan jecel lahay ayaamaha soo socda qolo kale waxay sheegeen oo rag u shaqeeya ururka caalamiga caafimaadka 30 malyan oo qof inuu ku dhaco dagaal sanadkan intuuna dhammaan jiradan amba cudurkani markaas waa cudur wadannadii waaweynaa ay sidaa ula taacayaan ay ula dhaqmayaan ay uga cabsanayaan waad ogtihiin wadannada yar ee annagu aan ka midka nahay jabuuti waxaan dhegaystay madaxweynaha jabuuti oo ka hadlaya sida cudurkan looga hortagayo dadkiibuu ka hor falaxashay waxyaalada yaab kale waxaa ka mid ah falaxalku ma aha dadka muslimka ah gaar ahaan reer jabuuti in la baro inay falaxashaan way yaqaanaan sida ay u falaxashaan laakiin reer jabuuti waxay sugayaan solution reality-ga oo laga hortagi karo cudurkan caddaan u yimiday jabuuti oo maaragtay 2 iyo 3 iyo 4 qofba laga helay oo ninkii ugu horreeyay isbaaniyoolkii ka soo dhacay kuwa talyaani ka yimiday kuwa turki ka yimiday kuwa bakistaaniya intaba laga helay oo madaarka jabuuti ka soo dadegay marka wax weeyaan problemku waxa weeyaan sidee baan uga hortagnaa cudurkan yaa dadka la rabaa ee lama rabo sidee baan ma aragtay loo falxashaa waxa yaab loo oo kaleeto madaxweynaha Soomaaliya aan dhageystay khudbadda isaga iyo khudbadda Ismaaciil Cumar wax badan uma dhaxay madaxweynahaas waxaan dhageystay Somaliland isagana wax badan uma dhaxay laakiinse ka Somaliland baad moodaysa inuu wax yar oo dadka waaqicooga inuu wax kaga daray marka aniga waxaan isweydiiyey arrin baa jirta waxa la yiraahdaa ummad walba waxay ka aamustaa wax kalena way ka sheekaysaa ayaan dhowtay waxaan ka hadlayay dameeraynta dadka iyo jaahiliinta dadka iyo waalista dadka waxaan la yaabay arrin ugu culus ee laga qaadi karo Jabuuti Soomaaliya Somaliland Ethiopia gobolkeena oo dhan dadkeenan meesha aan ugu culusnahay waxa weeyaan waa jaadka geedka jaadka la dhahdo wuxuu yahay geed faafin kara maxay cudurkan COVID-19 amba coronavirus soo faafin kara 3 meelood buu ka faafin karaa horta geedka jaadka min beerta marka laga soo gooyo ilaa qofka daanka dhigi doona cuni doona waxaa soo taabtaa dad ka badan 10 qof kii soo gooyey kii maarta geed ka soo gooyey kii soo qaaday suuqa keenay kii gooyey ee xidhay kii furay
kii suuqa islaantii suuqa lagu keenay kii iibsa yidhi iska dhigay ee mid kala qaatay ee haddana iibsida iska qaaday ee kolba eegay waxaas oo dhan akhiiran kii ugu dambeeyey cunay oo qaarkoodna ay biyar ku shubaan qaarkood saabuunteedha ku meedh yani waxyaala cajiiba ayaa ka socda dhulkeenna jaadkaas in mise qof baa taabatay taabashadii baa lagu leey waa lagu kala qaadayaa 6 saacana meesha uu qofku taabto cudurku uu sii oolayaa fiiriisku uu sii yaalayaa bay dhahdeen dhakhtaradii idan marka koobaad geedkii jaadka lagama hadlayba madaxweynaha soomaaliya kama hadal somaliland kama hadal in yar buu soo ku daray somaliland in la iska daayaa fiican buri ka jabuutina kama hadalba kow marka meesha koobaad lagu kala qaaday wataa meesha labaad waa marka la fadhiyo ee jaadka la wada cunayo qof ma jira jaadka keligii cuno uu yar yahay oo gurigiisa iska fadhiya oo isaga iyo xaaskiisa oo ciyaalkiisa ka dhex fadhiyo halkaa ku cuna ma jiro waxaa la tagaa majaalisku waxay leeyihiin 3 arrimood oo 3duba ay kala dartay kow horta waa la isku soo xidhaa majaaliska waa in la isdiiriyo waa in la isku leeliyo laba majaaliska sankaa la iskula jiraa waa maaragtay waa la sheekaysanayaa labadii mitir baa laga dhow yahay arrinta saddexaad ee majaalisku ay leeyihiin waxa weeyaan majaaliska qof kastoo soo galaayay waxa uu maaragtay soo salaamay uu soo taabtay boqol marka uu kacayo kanifa galayo kanifkii uu furayaa uu ka soo baxaya kii kale ka daba galaya uu furaya oo kii saddexaad baa ka daba galaya uu furaya biyaha dhexdeeda laga shubanayo waa la taabanaya waxaas oo dhan ayaa jira meelaha baa la isku taabanaya idan waxaas oo dhani jaadku wuxuu noqonayaa qamaqaadku mas'alada ugu khatarsan ee bahalkan marka uu bilaabmo sii fidin doonta ayuu noqon doonaa wax qaraara oo decision oo laga qaatayna ma jiro marka sidaa daraaddeed ikhwaani fillah aniga waxaan rabaa mawduucan sidaa u kulul marka aan akhristay dhegaystay baaray waxaan arkay wax cajiiba waxaan arkay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fiqigeennu inay hayaan waxaan u bixin karno fiqhiga caafimaadka waxyaala dadkeenu way barteen fiqiga cibaadada waan baranay fiqiga mucaamalaadka waan dhiganay fiqiga maaragtay dumarka al-usra waan dhiganay fiqi walba dadkeena badi waxbaa laga qoray waxbaa laga akhriyay laakiin waxyaalada aanan waxba laga qorin waxaa ka mid ah fiqhiga caafimaadku qur'aanka iyo xadiiska iyo diinteenna wuxuu leeyahay fiqhi buu leeyahay kelmadda fiqhi waad maqashaan in badan kelmadda fiqhi waxay ka tahay in wax la fahmo faqaha faqiha faquha saddexdu waxay ka dhigan yihiin alfahmu in wax la fahmo sidii uu yidhi nebi muuse sala allahu calayhi wacalaa nabiyina wasalam liyafqahuu qawlii inay ilaahow ii fudaydi qalaabtana ii ballaari carabkana ii jilci si ay wax ii fahmaan dadku yafqahuu ay yafhamuu walidaalika reer bani shucayb calayhi salaam waxay ku yidhaahdeen maa nafqahu kathiiran mima taquul waxa aad leedahay in badan oo ka mida ma fahanaba marka maa nafhamu ay maa nafhamu weyaan marka kelimatu lfiqhi waa alfahm waa in wax la fahmo shareecaddana waxay ka dhigan tahay axkaamta in la fahmo ilaahay uu soo dejiyey ee adilada tafsiiliga lagala soo baxayo idan waxaa ku jira shareecadeenna islaamka min xays alwiqaaya ka hortagga wa min xays tawjiihaad ay ka bixinayso isdaweynta waxaa ku jira nusuus ka badan nusuusta kale ee xataa ka sheekeynaysa cibaadooyinka qaar ka mida sida ducada iyo dikriga fiqhu ducaa ka badan yaa ku jira oo ka hadlaysa sideebaa caafimaad loo samayn karaa fiqhu sixa qof baa ku tanabuhay qarnigan nin caalim weyn oo dhashay maaragtay soddonooyinkii 35 dhashay oo jaamicadda dimashq kaga baxay dhinaca dhakhtarnimada kontonooyin 60kii kaga baxay oo ka shaqeeyay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa munadamada ururka caafimaadka ka shaqeeyay oo meesta oo la doctor maxamed haytham al-khayaat oo ah nin faqiiha nin mufassira nin luqawi ah nin mufakkira nin isla markaasina dhakhtara ninkaas baa ku tanabuhay mawduucan wuxuu ka qoray kutub aad u fara badan oo uu ka mid yahay kitaab uu bixiyeyba fiqhu sixa caafimaadka in la fahmo fiqhi in laga soo saaro axkaam lagu dhaqmo kutub kaleeto oo sida shanqiidi raximahullah
isaguna wuxuu ka qoray kitaab buu ka qoray dhinaca dibbiga fiqhu dibbiga dhinaca dhakhtarnimada sida maaragtay islaamku wuxuu ka qabo isaguna waxbuu ka qoray laakiin waxa weeyaan marka aan akhriyey nusuusta qur'aanka iyo axaadiista nebiga waxaan is idhi haddii la dabaqo diinta islaamka oo loo dabaqo si cilmiya oo loo dabaqo si xadaari oo ilbaxnimo ah cudurro fara badan iyo jirooyin fara badan ayaa laga badbaadi lahaa walidaalika waxaan u bixiyey islaamka almashruuc alghaa'ib waa mashruuca dadka ka maqan dadka mashaariic kala badan baa loo hayaa oo ay u keeneen dadka jaahilsanaya laakiin mashruuca maqani waxa weeye kitaabka ilaahay qur'aanka kariimka ah oo inta badan kitaabka qur'aanka kariimka ah oo inta badan dadkeennu ay u haystaan laba arrimood kow waxay u haystaan marka uu qof dhinto inay ku akhriyaan waana akhdaada aan gallay ka mid tahay qofka in loo duceeyo oo qur'aan loo akhriyo anuu kama horjeedo laakiin in laga dhigo hada alkitaab qur'aankan kariimka ah kitaabkan ilaahay tabaaraka wa tacaala in laga dhigo in loo arko in laga dhigo inuu yahay kitaab loo soo dejiyey in dadka dhintay lagu akhriyo oo qofkii noolaana uu ka faa'iidaysan waayo ilaahay baa dhi liyundira man kaana xayan qur'aankan waxaa loogu talagalay in loogu digo qofka nool liyundira man kaana xayan marka labaad in qur'aankan xasuusano waxa weeyaan marka problem uu nagu dhaco psychology amba psychological ah qof wareeray qof jingalay qof sixir leh qof wax ku dhaceen kaalaya ku akhriya qur'aanka kariimka labadaa goor baan kitaabka ilaahay xasuusanaa laakiin uma haysano qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin ilaahay agtiisa waxa iniga yimid nuurku waa maxay waa triig waa iftiin waa nal ku shidaysid baadilka iyo waxa ku haysta iyo kitaab cad kitaab mubiin liyubiin caddaynaya waxa kaa qarsoon caddaynaya buu ilaahay tabaaraka wa tacaala markaan qur'aankan iyo xadiiska nebiga iyo waxyiga markaan akhriyey waxaa iga soo baxay mashruuc dhan oo ah mashruucu sixa mashruuc caafimaad mashruuc bini aadamku u baahan yihiin hadday qaataan ay ku caafimaadayaan waxa ay yidhaahdaan culummadu dhakhtarradu markay hadlayaan waxaan eegaynaa waxa ay yidhaahdaan iyo waxay diintu tiraahdo waa cajiib weeyaan ma aha waxaan isku rakibayna maaha waa wax say u socdeen ay u yimaadeen qur-aankii ama diintii ambase cilmigeennii turaaska ku jiray culummadeenni dhakhtarradu ay oran jireen ay ka soo saari jireen cilmiga ay baadheen iyo cilmiga ay ka soo saareen waxyiga walidaalika waxay yidhaahdaan culummadu atibbu tibbaan caafimaadku waa laba nooc xifdu sixati cala alasixa iyo raddu sixati cala almarad bitadaawi wata'hiil waa labadaa un waxay yidhahdaan in caafimaadka loo ilaaliyo dadka caafimaad qaba basharka caafimaadka qaba in caafimaadkooga la ilaaliyo waa min asixa waa sixada waxaa dhahdaa dowladdu waxay leedahay siyaasad caafimaad dejin maxay ka tahay waxay dowladdu leedahay siyaasad caafimaad dejin waxay ka dhigan tahay dowladdu waxa ay leedahay habkee loo ilaaliyaa caafimaadka waa waxa loo yaqaano asiyaasaat alwiqaa'iya sidee looga hortagaa cudurrada waxaa ka horeeya sidee cudur looga hortagaa sidee loo ilaaliyaa caafimaadka arrinta labaadi waxa weeye raddu sixati cala almariid qofka bukay in loo soo cesho caafimaadkiisii bitadaawi in la daweeyo wata'hiil lana diyaariyo leanna qofku marka uu caafimaado dadka qaarkood waxay u baahan yihiin waxa rehabilitation idhahdo in dib loo diyaariyo yay u baahan yihiin arrintaas qur'aanku wuxuu uga hadlay si gariib ah ayuu uga hadlay qur'aankeennu waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowr aayadood baan soo qaadanayna oo cajiib ah oon akhrina had iyo jeer laakiin kalama soo baxno waxaan u baahnayn ilaahay wuxuu yidhi suuratu alaclaa sabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawaa ilaahay wuxuu ku yidhi alladii khalaqaka fasawaaka ilaahay wuxuu ku yidhi wanafsin wama sawaaha aayadan wuxuu ilaahay aayadahan saddexda ah wuxuu kaga warramay saddex arrimood saddex goor buu wuxuu kaga warramay arrin quraati kow wuxuu kaga warramay qur'aanku aayadda koowaad alladii khalaqa ilaahay waa macbuudka uumay ee abuuray
ee dhammaystiray kadibna fasawaa wuxuu abuuray buu sawaa uu taswiyey uu isku dheeli tiray التسوية تسوية بصاري مركا أرنت كوادي واتاوي سورة إلهي وحكوري انفطار خلقك إلهي أوكو أبوري فسواك أونكو سمي متوازن باتاي أوكو ديلي تري إلهي وحكوري سورة الشمس ونفس إلهي نفك أوكو دارتي نف والبا ما هجركي وهوستي وما سواها يدنا وديلي تري علماء وحي لحظان كلمة وحا كجرت هالكن السواء إنه قفكو الثانية مركا الأبورو وحوال بوديلي تري أم بس التسوية والديلي تري قفك بني آدم ووحا أي سورة الرحمن أي كنت المامتي الميزان الدونك وحا يالا كونك ميزان هدي ميزان كالوايو كونك وحا كدعيا دباتو قفك بني آدم ميزان بو إلهي أسميه هدي ميزان كالوايو قفك الدباتا كود عيسى وحويان كل شيء وحولوا إلهي أبوري ميزان بو كدجي إلهي تبارك وتعالى علي ووضع الميزان ووحو علي قرداجي علامة دوين قطرقة أنباء عراققة وكنت المامي فقه الميزان إلا فهموا ميزانك ولذلك علماء مركا محيد هذا علماء إني هرنا محيد هذا عافمات وحيك الله وحيدها عافمات وحويان العمل وفق الميزان قفكو كشقايا زي ميزان لي وعافمات قبا مرض كنوا محي اختلال في الميزان وقفكو او اي كود عضو اختلال جر او مارة اللواية ام بس ميزان كي او دينا او جنجير بادحي قفكو مركا اللي هبل سكر بو قبا معان بو قبا محي كده انت هاي او جنجيري ميزان كيسي هبل بيكر بو قبا ميزان كي با جنجير هبل وحويان نقص باهيا أو نقص كاكودغا maxay ka dhigan tahay miisaankii baa janjeeray hebel waxa weeyaan waxa ku dhacay cudur noocaas waxaas oo dhan waxay dhahdaan wa ikhtilaalun fil miisaan Ali ibn al-Abbas radiyallahu rahimahullah wa aalim weyn qarbarada wuxuu ahaa majuusi ma islaamin laakiin waxba kama jiraan qof muslim uu ahaa laakiin asalkiisu farisi yahay ama persian yahay wuxuu qoray 1000 sano ka hor kitaab buu qoray dhada kaamilu sinaaca buu kitaabka qoray wuxuu qoray wuxuu yiri caafimaadku taariifinaya wuxuu ka bixinaya caafimaadka taariif muxuu yahay caafimaadku wuxuu yiri huwa aya caafimaadku i'tidaalul badani waajirka oo miisaankiisi haysta caafimaadku waa maxay i'tidaalul badan jirka oo isku buuxa isku dheeli tiran hada huwa sixa waxa uu yiri ibn sina kitaabkiisa al-qanun kelmad intaas iyaduna ka agdow okay marka aan sida u fahanno caafimaadka marka sida looga hadlay eeg waxaan rabaa meesha aan joogno inaan ka durugno oo meel kale aan u durugno waxa uu sheegayaa caalimka Ali Abbas 1000 sano ka hor taariif buu ka bixinayaa wuxuu sheegayaa caafimaad oo maxaa tahay caafimaadka waqtiga waxa loo yaqaanay hebel ma jireysno hebel ma buko intifaa'ul marad qofka aan cudur qabin jirro aan qabin ma loo jiro caafimaad qaba laakiin waxa dhici karta qof jirro qaba oo caafimaad qaba jira maanta iyo qof caafimaad qaba oo jirro qabin laakiin aan caafimaad qabin waxyeelada mafaahiimta dadku ay murakkabka ay kamid tahay ee yaabka badan munadamadan la yiraahdo ururka caalamiga ee caafimaadku waxay soo saartay 50 sano ka hor taariifka wuxuu ka soo qaateen ka Ali Abbas 1000 sano ka hor u sheegay amba ibn Sina uu sheegay 1000 sano amba 800 oo sano ka hor uu sheegay طبيبكي فقيه أها ابن رشد رحمه الله كتاب كيسا الكليات وبحي وأنك يقرؤون بداية المجتهد هي نهاية المقتصد محول المركع أورك عافماتك دولدو محايتري وحيد هذين عافماتك وحويان معافاة كاملة وقفك أو اسكت ديلي تيران وعافمات قبا جر أهان نف أهان بلش أهان كما دينو عذر مقبو أنبا jirkiisa qayb baa maqan oo quraatay saas maaha laakiin caafimaadku waa arinta kale culumada taqliidiyiinta dhakhtarada taqliidiyiinta ee ku shaqeysta dhakhtarnimadu waxay koranayaan hebel baa u tagaya
ma weydiinayaan bi-aduu ku nool yahay environnemaaga iyo deegaanka uu ku nool yahay ma weydiinayaan halkuu ka soo kacay ma weydiinayaan jeebkiisa maxaa ku jira ma weydiinayaan gaadaal xaas ma ku leeyahay ma weydiinayaan isaga iyo faamiligiisa maxaa u dhexeeya ma weydiinayaan bas waxay baadhayaan jirhkiisa waxay odhanayaan ma bugtid waa caafimaad qabtaa laakiin qofkaasi ma caafimaad qabaa waa maya walidaalika ibnu rushdi raximahullah kitaabkiisa alkuliyaat wuxuu ku yidhi caafimaadku waxa weeyaan xaalatun fi lcudwi waa jirka xaalad jirka ka mida oo ficilka uu samaynayo jirku siduu u samayn jira u samayn karo waa inuu wadnuhu sidiisii u caafimaad qabo keliyuhu sidoodii u caafimaad qabaan beerku sidiisii u caafimaad qabo intii loogu talagalay awooddii ilaahay ugu talagalay waa inuu haysto uuna ku inficaalayo uu shaqadiisa ku qabanayo marka ay sidaa tahay wuxuu yidhi waxaa jira jirkaasi uu caafimaad qaba walidaalika culummada qur'aanka marka la baaray sidaa ninka maxamed haysam alkhayaal la dhahdo waxa uu ka soo saaray in loo baahan yahay 4 arrimood in la helo haddii la rabo in cudur la dagaalamo corona la dagaalamo amba la dagaalan cudur kale oo soo socda amba ku hore u jirayay amba ku dadkaba haysta si loola dagaalamo waa in la haysto 4 arrimood oo muhiima kow waa inuu caafimaadku haysto miisaan waxaa loo yaqaana health balance waa inuu healthigu caafimaadku sixadu saanteegu waa inuu balance haysto waa inuu miisaan haysto hadduu miisaan jirin caafimaad ma jiro waa kow arrinta labaad waa inuu haysto xifdu sixa waxa loo yaqaano security amba protection de la santé waa inay jirto ilaalinta caafimaadka protectionka halsiga waa inuu jiro halsiga caafimaadka waa in la difaaco waa in la ilaaliyo okay ta labaad waxa duinteena ka arki doonaa arrintaas waxa waa in la helo rasiid sixiya qofku waa inuu dhigta kayd caafimaad waa inuu haysto kaydku waa cajiib kaydku waxa weeyaan waa inuu qofku haysto waxa loo yaqaano potentiel pour la santé waa inaad qofku uu meel wax dhigto oo hadhow kala soo bixi karo oo marka dhibaato ku qabto maanta waxaa la leeyahay matalan ka soo qaad qofka koronaga waxaa korta karaya qofka jirkiisu fiican yahay caafimaad sport ciyaara cunto fiican cunayay cunto maaragtay diirdiiran cunayay cunto maaragtay nool cunayay caafimaad qabta cunayay faamiin fiican ku dhex nool maaragtay jirkiisu dhisan yahay gudahiisa ka dhisan ma legdi karayo corona uu marayaa wax laga sheekeynayo weeyaan marka muxuu haystaa qofkaasi rasiid buu haystaa wuxuu haystaa waxa loo yaqaano potentiel buu haystaa de la santé arrinta ugu dambaysa waxay leeyihiin waa inuu qofku haysto tacziis sixi tacziisku waa maxay waa inuu haysto renforcement waa inuu haysto waa inuu amase waxa loo yaqaano promotion waa inuu haysto waa inuu tacziis waa inuu maaragtay quweyn caafimaad waa in qofka caafimaadkiisa la quweeyo 4 arrimood baa laga hadlayaa mina miisaan jiro ilaalin jirto kayd uu jiro iyo ilaalin iyo quweyn iyo xoogeyn inay jirto ayaa laga hadlayaa marka ikhwaani fillah islaamku si aan cudurrada uga hortagno aan ba iskaga celino muxuu ina siiyey dadkeenu meel dhow ka soo qaataan waxaa matalan dhowr shay oo meel dhowdaan sheegay baa jirta in la falaxasho in la luqdo in maaragtay laga baxsado qadarka ilaahay oo qadarka ilaahay loo baxsado in la isdaweeyo intaas waa sheegay laakiin waxaan maanta inii sheegayaa dhowr wasiilo oo ah siduu islaamku ugu talagalay tacziis u sixa in caafimaadka la quweeyo in rasiid la haysto kayd la haysto islaamku muxuu ina siiyey waxa ugu horreeya ina siiyey u fiirsadaa islaamku wuxuu inaga yidhi waxaad cuntiin dhinaca raashinka raashin wanaagsan islaamku inagama oran cuna wixii xalaal oo dhan ma oran ilaahay muxuu yidhi tabaaraka wa tacaala wuxuu inaga yidhi kuluu min tayibaati maa razaqnaakum waxaad cuntiin waxa fiican waxaan nigu arsaaqnay waxa fiican saad u garanaysaa waa waxa u fiican jirku maadaama uu miisaan leeyahay maskaxda cunto u fiican baa jirta wadnaha cunto u fiican baa jirta keliyaha cunto u fiican baa jirta kobaca cunto u fiican baa jirta fitamiinkii broteenkii alyaaftii maaragtay duhniyaadkii wixii oo isku dheeli tiran dhinaca kayfka qualiteega cun baa laga leeyahay kuluu min tayibaati maa razaqnaakum ilaahay wuxuu inaga yidhi tabaaraka wa tacaala jirhkiinna ha ka xarimina waxa fiican waa arrinta labaad ee jirhkiinna wax u taraysa laa tuxarimuu tayibaat ha iska xarimina waxyaalada wanaagsan uu ilaahay
inii xalaaleeyey. Okay, arrinta kale waxa weeyaan waxaa kaloo laga daba keenay marka waxa fiican cuna walaa tadghaw ana xadgudbina. eeg xadgudubkiina waa naloo diiday, ikhsaarkiina waa lagu diiday. ha gaabinin oo waxaad u baahnayd ha ka joogsanin, waxaanad u baahnayna ha cunin, xataa xalaal ha noqdee. iyadoo xalaala ka joogsaa laga yidhi waxaa lagu sheegay quantity-ga iyo quality-ga inaad isku miisaantid yaa lagu sheegay. ilaahay wuxuu yidhi kuluu washrabuu walaa tusrifuu, cuna caba laakiin xadkii ha dhaafinina. amraadu tukhma inay nagu dhicin, amraadda casriga inay nagu dhicin. waxaa kaloo naloo sheegay laa darara walaa diraara, waxaa kaloo naloo sheegay laa darara walaa diraara. waxaa lagu yidhi hana dhibin naftaada, dadka kalena ha dhibin jidhkaaga, dadka jidhkoo kalena ha dhibin baa lagu yidhi. waxaana la siiyey waxyaalooyinka keensanaya waxaa ka mid a in aan ma aragtay jidhkeenna caafimaadka ku taageerno. waxaa ka mid a nadaafadda shakhsiga ah, waxaana la amray nadaafad caama. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faqtasiluu maydha, faqsiluu wujuuhakum, haddana meelaha qaar si gaara u maydha, gacmaha, wejiga dhaqa, maaragtay gacmaha dhaqa. waxaa lagu yidhi cadayo, siwaagii qaataa layidhi. waxaa lagu yidhi ka gur maaragtay timaha caanada, cawrada ka dulgur. waxaa lagu yidhi maaragtay ilaali meelaha khaaska ay wax ka soo baxayaan, cawradaada halka hore iyo halka dambeba aad u dhaq oo ilaali baa lagaa yidhi. waxaa lagu amray sida aan aragnay guurka inaad samaysid bio iyo environment caafimaad qabta oo hooyo wanaagsan, islaam wanaagsan, ubad wanaagsan dhexdiinna ay jiraan. waxaana la amray inaan jidhkeenna ixtiraamno. jidhkeenna maaha inaan ilaalino, maaha inaan ixtiraamno oo cudwiba walba aan xaqiisa aan siino iyaana la amray. waxaana la amray inaan shaqayno inta aan karayno. calaykum bimaa tutiiquun, waxaad karaysiin uun qabta. laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha. waxaana la amray inaan isboortiga ciyaarno oon jidhkeenna dhisno. waxaa la yidhi almu'minu alqawiy khayrun wa axabu ila allah min almu'min aldaciif wa fii kullin khayr. waxaana la amray in aan maaragtay wixii nafteenna faa'iido u leh inaan soo qaadano. ixris calaa maa yanfacuk, wixii ku anfacaya ilaali oo ka daba tag dawooyinka, cuntooyinka wixii faa'iido leh cun baa la yidhi. waxaana la amray in aan ka hortagno cudurrada qaarkood. waxaana la amray inaan ilaalino nafteenna. walaa taqtuluu anfusakum walaa tulquu biaydiikum ila tahluka. waxaana la amray inaan isku bandhigin cudurrada faafaya oo ka baxsanno. fira min almajduum firaaraka min alasad, ka baxsaa lagu yidhi. waxaa lagu amray haddaad maqashid daacuun baa waddan ku dhacay ha tegin, haddaad fadhididna ha ka bixin, xajri sixi. waxaana la amray waxa madaxeenna iyo jidhkeenna dhibaya inaan nafteenna ka ilaalino iyaana la amray. ilaahay baana amray tabaaraka wa tacaala. waxaa la amray dowladda iyo ummadda oo dhan inay diyaariyaan maaragtay deegaan caafimaad qaba, oo ay diyaariyaan imaadatul adaa, in dhibaatada dariiqyada laga qaado oo jidadka muslimiintu ay nadiif noqdaan. waxaa la amray inaan la baabi'in geedaha. waxaa la amray in la goyn geedaha mudhaysanaya. waxaa la amray inaanan la baabi'in xoolaha la leyn oo la marin. waxaana la amray inaan la leyn xayawaanka kownkan, in la ilaaliyo ecologiquement caafimaadka kownka in la ilaaliyo oo xayawaanka la iska leyn liajli leyn uun. maaragtay shimbiraha in la leyn, inaan maaragtay ayda la marin. lowla alkilaabu umma, hadday aydu ahayn ummad waxaan baabi'in lahaa buu nebigu yidhi sala allah alay salam. wixii la baabiyaba balaaya ka dhalanaysa. waxaa la amray in la ilaaliyo maaragtay naajarka dusheenna yaalla, maaragtay ilaahay nagu duuriyey. walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha iyaa la amray. waxaana la amray inaan maaragtay shareecadeennu waxay tiri waxaa loo soo dejiyey nasalat calaa muxaafadati aladyaan wa muraacaati alabdaan, inay diintana ilaaliso, jidhka bini aadamkana ilaaliso. imaam ghazali raximahullah kitaabkiisa aliqtisaad fi alictiqaad wuxuu ku yidhi diintu waxay ku salaysan tahay cilmi iyo cibaado, jidhkuna wuxuu ku samaysan yahay caafimaadka. labadaabaa isku buuxsamaysa. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah ee subaxii soo kaca isagoo jirkiisu caafimaad qabo, maaragtay nabadgelyana ku nool, cuntana haysta, wax ka maqan ma jiro. marka waxaas oo dhan waxa weeyaan waa canaasirta ilaahay uu dejiyey tabaaraka wa tacaala. idan waxaan qoranaynaa problemku wuxuu ku jiraa laba meelood.
الطغيان والإخسار. الطغيان والإخسار وكا مرضكو وأدو حد قدبة يا أدو قابية جيركا هداد كو حد قدبتي وحول بعبتي وحول بعبتي dadka jaadka iska cunaya dadka khamriga iska cabaya dadka xashada iska cunaya dadka maaragtay kookaha cabaya dadka bebsiga iska cabaya dadka hamburgerka isku guraya dadka waxay arkaan dam ka siinaya wax kasta cunaya duqyaanka inma bagyukum ya ayuha an-nas inma bagyukum ala anfusikum waxa dhibaato inagu dhacda ininka isku geystay buu ilaahay tabaaraka wa taala hada huwa duqyaan ikhsaarkuna waa maxay adoo waxay naftu u baahnid ka celiya وكري إنا هالشيء لا تحرموا هاسك حرمين أبو إلهي طيبات أحل الله لكم إلهي إني حلالي نبي وحولي لما تحرموا ما أحل الله لك وحو إلهي كو حلالي ما حاسك حرم يسا شرع دين مو أقلو رهبانية دا قف يقولوا اشتلو كهجي اسكو دلو ونفسك كسارو عنتعني وايو بيعبي وايو ردفي عن سيحان وايو قورسن وايو دلي وايو شقين وايو وحقبسن وايو وررأو جابو نفتيسو اي بمبرتو سلاكو ما قولو اذا بروبليم كوا بحي اي مرض دنيا كدعايا سببتيسو maxay waa طغيان waxba xad gudbay amba waa ikhsaar waxba gaabiyay arrintaasna maxay ka baxday miisaanki bay ka baxday wada al miisaan caafimaadkuna waa al miisaan shariicadiina fahma ayuha almuslimuun suuratu arrahmaan suuratu almiisaan suuratu alinsaan labada ana u bixiyay suuratu arrahmaan culummadeena talaamay ilaahay baadhi waa suuradeena ilaaha naxariista leh سورة الميزان ووضع الميزان سورة الإنسان خلق الإنسان سورة البيان علمه البيان إلهي تبارك وتعالى وحليه ووضع الميزان لماذا؟ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان تلك الميزان كيساكو عيار هداد كو عيارتين وحوشا علي ابن العباس يدعي في كامل الصناعة اختلالك بدعي عذر باكو دعي لأن الميزان كي بدلي وحاكو دعي ابن سينا وشاقي في القانون وحاكو شاقي إمارة ابن رشدي في الكليات وحا مانتا شاقين دختردوا إناي معافات كي كامل كي أدويلي ونفسيا وحاكو دعين جراهان وحاكو دعين بسيكولوجيكالهان وحاكو دعين أم بس بلشاهان وحاكو دعين هذا هو المرض وهذه الصحة مركا عافيماتكو مركا اللي قولي هلا فلحاشو ومن الإسلام مركا اللي قولي هل يجدوي النبي عليه السلام يا عباد الله تداووا أمر الضومها إلهي استويا قرما هدو عذر إنه قدعو إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلهي عذر ما أبور إلا وحو أبورات دوديسا لا بد من الدواء معايا لك إن النولاتي حق على الله إلهي باكسي حق الحياة إلهي باكسي حق الحرية إلهي باكسي حق حماية البدن وحق على الله إن جركا هذا إله لسيد لو إله لسيد روح ضاده إيه عقل هذا ولذلك الدين تينو محيطي مقاصد الشريعة واشن دين توحو إيمتي واشن وحاول رأينا الدين تلا نفط إلا إله يكون النفس وإلا إله لي دين الله إله لي أنكون وإنا إلا أنه نفتنا الله كسيه وإنا أدو إله لسيد مركا نفط إلا إله لي ومهم جدا ولذلك أيها الإخوة وحالينا وحوي ماتا ونقرب حياة كلمة دي إلى لنت عافماتك ilaalinta caafimaadku waxay ka mid tahay diinteena islaamka waana ilaahay baana dejiyey tabaaraka wa tacaala rabbul caalamiin baa inoo dejiyey waxay baa inaga sheegay fiqhu sixa fiqiga caafimaadka fiqhu sixa fiqiga caafimaadka kama hadlin fiqiga caafimaadka oo dhan lianna ma karano waa kutub baa laga qoray waxaan rabay inaan garanno inay diinteennu ay tahay diin dad fara badan aynan ogeyn walidaalika doctor axmed araysuuni caalimka weyn ee reer maraga علماء مقاصد الشريعة ووينا وحو إنه شيء إن همان تلو باهي إن وينينو أنصار صارنو مشروع الله يقانو فقه الصحة فقه عافماتك ما موقف الإسلام من الصحة إسلامك عافماتك محوك قبا كيف يعزز صدوق أمارة أحوغينيا كيف يدعو إلى الرصيد سيام كيد كأوليغانا علماء مركي كهالي المثل سيديك كيد لوردك عافماتك وحي شاقين صدح رمض بشاقين بركيت كلا دغلay waxay dhahdeen waa cunto fiican oo la cuno waxay dhahdeen laba waa jir la yaaqab badan ee jirka oo la dhiso saddex waa isboor badan oo la ciyaaro afar waa salaad fiican oo la tukado iyo ilaahay oo cilaaqo la yeesho shan waxay dhahdeen waa ina maaragtay bulshada aad ka mid tahay si ula noolaatid caafimaad qabta
qofku markaa wuxuu yeelnaa bidhaadeen rasiid kayd buu yeelnayaa qofku markay dhibaata qabsato kaydkiisu wax ka soo saaraa si uga hortaga dhaqaale ahaan qofku hadday jirkiisa dhibaata ku dhacdana ninba ninkuu ka kayd badan yahay buu ka caafimaad badan yahay marka kayd waa inuu dhigano rasiid sixiya waa taa weeyaan islaamkaana inoogu yeedheen waxaa dhan inaga leh isboor ciyaara cunto fiican cuna hurdo fiican seexda salaad fiican tukada qoys fiican yeesha nolol fiican ku noolaada farxad badan ku noolaada kayd bay ku noqonaysaa tacsiiskiina markaa waad helaysaa oo awood bad waa reforcement waad xoogeynaysaa caafimaadkaaga arrinta labaad xifdu sixa caafimaadka ilaalinaysaa arrinta saxaad miisaankii baa kusoo noqonaya marka qofka miisaanka leh qalaq ma yeelanayo stress ma yeelanayo arrinta ugu dambaysa oo kaga baxay waxa weeye dood baa ka dhacday masaajidda la xidhay dadku waxay leeyihiin maxaa masaajidda loo xidhay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa weeyaan miskiidka in la xidho iyo inuu qofku salaada miskiidka jamaca tegi waayo waa inaan kala saarno anigu kuma jiro dadka odhanaya masaajidda ha la xidho masaajidda iska furnaadaan masaajidda ilaahay iska furnaadaan qofkii doonaya keligii ha yimaada ha ku tukado laakiin jamaaca ma jirayso saddex arrimood daraaddeed kow nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka cuna basal amba toon inuuna miskiidkayga falaa yaqrabanna masjidana miskiidkayga inuu naga iman jamaacadda inuuna iman aqrigiisa ku tukado lianna urtan iyo la nacayaa maxaad u maranaysaa qofka cudur fidinaya amba cudur soo qaadi doona marka ma dhici karayso tanaa ka xun tani ur beer bay keenaysay hada min baabi awlaa arrinta labaad jamaca waxaa loo joojin jiray waxaa ka mida oo la odhan jiray guryaha ku tukada hadduu rubdo hadday cabsi jirto iyo haddii dagaallo ay dhacaan ambaba ay waxyaalooyin kale oo maaragtay katastrof ay dhacaan arrintani waa arrin dabiici aan hayn oo dhacday marka maxaa la rabaa in iyadana la iska ilaaliyo oo loo soo qaato culimmadu waxay idhaahdeen waa wixii baa maanta socda marka arrinta labaad jamcii lama tukanayo nebigu sal ly slam waxaa yihi salluu fii rixaalikum baa loodhan jiray guryihiina ku tukada markuu robdo salluu fii buyuutikum asalaatu fi lbeyt asalaatu fi rixaal guryaha lagu tukado fi lbuyuut intaba waa la odhan karaa goormaa la odhan karaa eedaanka marka la eedaamayo baa lagu dhex darayaa halkii xayi cala salaat unba halkaa la gelinaya ambase marka eedaanka la dhammeeyo ayaa la dhahayaa asalaatu fi lbuyuut guryaha lagu tukado idan arrintaasi kama hor imanayso maaragtay qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala arrinta saddexaad bal waa min qadar illah ilaahay qadarkiisi weeye ilaahayna amray anagu waxaan rumaysannahay ilaahay laba iraaduu leeyahy iraada sharciya iyo iraada kawniya iraada kawniga wuxuu ilaahay qadaray u dhacayaa qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana guryaha haddaan fadhina uu nagu dhacayaa laakiin iraadada ilaahay qadariga anagu ma arkayno ilaahay aniga muxuu qor igu dilayaa ma garanayo laakiin waxaan garanayaa iraadada sharciga amarku ilaahay siiye marka amarku ilaahay siiye waa inaan qaato tadaawu isdaweeya waa inaan qaato sidaa yeela salaada marka eeg fiqiyaraanta diinta lagama qaato dadka caadiga ah diinta culummada laga qaataa culummaduna muttafaq bay ku yihiin hadi mas'ala mas'aladan muttafaq bay ku yihiin marka arrintaasina waa arrin muhiima masaajida la xidhay dad fara badan waxay leeyihiin sida sheekh la yidhaahdo xaakim almatiri allah yaxfado oo caaliman aad u jecelhay oo kuweytiya oo culimada salafiyiinta ugu waaweyna wuxuu leeyahay arrintan waa qalad in masaajida la xidho waa in la daayo annaku waxaan leenahay arrintaas uu ku qaldan yahay xaakim almatiri oo culimmada kala kaga wada saxsan ee arrintaas ku waafaqday maxaa yeele wuxuu yihi diinta ka horeysa nafta annakuna waxaan leenahay waa sax diintii lagama tegin sida uu yihi axmed araysuuni wuxuu yihi salaadii lama dayn takmiilu salaad baa la daayay jamcii baa la daayay salaaddii waa la tukanaya ilaahay ha loo ordo lagama tegin ilaahay waa loo ordaya laakiin waxaa loogu ordayaa meel kastoo la joogo ilaahay masaajidda uma joogo guryahana uu joogaa ilaahay fi kulli makaan uu joogaa marka arrintaas waa muhiim in la fahmo inay salaadii lagama tagayo quraankii lagama tagayo diintii lagama tagayo laakiin waa muaqad waa ijraa baa dhahdaa waa qaraaro la qaatay oo ay qaateen wadanada muslimiinta iyo kuwa kaleetaba iyo ururada islaamka ay qaateen masaajidda xakuma ay yidhaahdeen arrintaasi waa arrin lagaba maarmaana sidaa daraaddeed waa arrintaasi iyada taas baan ka oran lahaa waxaan kaloo ku dari lahaa inaan dhowr waano aan siiyo dadka biniaadanka waanada koowaadi waxa weeye ikhwaani fillah laa taqlaqu kasiiran stresska fara badan iska daaya ilaahay baa adduunkan xakuma ilaahay wuxuu kuu qoray baa kugu dhacaya laakiin ahaw qof ilaahay ku xidhan laa taqlaq kasiiran arrinta labaad ilaahay dikrigiisa badi khaasatan ducooyinka macsuurka ah badi ducada ugu muhiimsanna waxa weeyaan bismi illaah alladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wa huwa asamiicu alcaliim waxaa kaloo oran kartaa xasbiya allah laa ilaaha ilaa hu calayhi tawakaltu
وهو رب العرش العظيم. واحد كلود أورب كرتا حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أوكي بدي آخري سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. أريد كلام مهم كوحبير وحان كلون جعلها إلهي هذا إنان إلهي برنو دعو اللهم إني أعوذ بك من البرص النبي يقول عيستي ومن الجنون والجذام ومن سيء الأسقام. إلهي وحد رسول كما كان قال عذرا برستا وكما قال الجذام كما عذرا لك لقاضو إيو وكما كان قال والدها إيو عذرا حن أوردن كورونا وكوفيد وحا مسوق عليها كله محي ووحا حن أوردن حارنا ومن سيء الأسقام وكان قال دعاء هم بدينه صلي النبي هم بدينه صلى الله عليه وسلم نبي قال نيجا كوصلي مر إلهي نوح كوصليا مسكور طبعا جار هدو إلهي كوصلينا واحد بدن بان هليسا هم بدينه أو كلا أرنتا مهم كأه إنان عقليين كحرينه عبصدا أما استرسك عبصدا لا نخاف إلا الله إلهي يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هكبقينا إياك أنا يكبقى حتى يأتي المؤمنين بنا يسمى إلهي برا يسمى اللهم كبقينا قفك إلهي كبقينا ففروا إلى الله إلهي بو أرضى تبارك وتعالى إلو بنا إنا استعماشان ذاتك آن لهين سكر بدن ملبك معانك ملبك إلا عبو إلهي بان شفاء للناس ذاتك آن معانك لهين ما شيء آد الله استعماله خاصة وقت يا شقار كود هلا عبو إلو بنا إنا عنتان وضبطتان واختياش صبحية قلبتيبا وحلو يقان حبة السوداء النبي يقول صلى الله عليه وسلم حبة السوداء دواء لكل داء عذر والبا وحيوتها الدواء إلا الصام موتك وحداين وحانا إميك الدراسات للسمية وعلم باريس على شاقي إنا يكرقارتو تعزيز أو سميسو مناعة جرك بنادك إنا كعسو مركا تحل تلقوغي هاي أصل كيغا يدنا إلا عنو ولا قبا بارمان أو لا بصدو لأنه توجيه نبوية عليه الصلاة والسلام. أنت أصبح عنك بحيا ولا لا كلمة دايرة كوبان أو كصابسن محو إسلامكو إنه هيا برنامج ماها لكورتك كورونا ماها برنامج كوفيد إلا كورتك سكالي طبعا وحويان وكورتك جرويكا يعذر رضا يدسمها جركا يعافيمات كنفتا يعقلك يمانك يمسكحدا. أنت عن درسك الأوكل بدونه وحاني قتك يا سدائي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.